بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد meeshaan waxaan ka soo jeedinaynaa war kooban oo ku saabsan sida loo fariisto loona neefsado. waxaa jira sababo badan oo qofku ku kalifaya inuu barto sida loo neefsado iyo sida loo fariisto. waxaan ugu weyn inuu qofku i'tikaafo oo masaajidka uu galo oo asaga xiriirka asaga ka dhaxeeya asaga ilaahay ka dhaxeeya inuu xoojiyo. bacdama i'tikaafku uu baahnaanayo saacado dhaadheer in la fadhiyo arrintan qofku anfacaysa. marka qaarkoodna qofku waxaa jirta duruufo ku kalifaya inuu saacado dhaadheer meel fadhiyo uusan asagu xorriyad uusan haysan. markaas oo kale tan arrintaani waa arrin anfacaysa. si walba ha ahaatee fadhigan iyo neefsigan aan soo sheegi doono wuxuu saldhiganayaa ilo aan diin shaqo ku lahayn iyo ilo diin shaqo ku leh oo salkooduna uu yahay shibka qaaradda hindi ama waxa uu eg qaaradda hindiya. waxaan xaqiijiyay inaysan arrintaani aysan ka hor imaanaynin diinta islaamka bacdama ay tahay oo keliya neefsi iyo fadhi oo ay tahay teknolojiyad maaragtay dhanka caafimaadka iyo sababihii hadda aan soo sheegnayba loo isticmaali karo. arrintan oo faahfaahsan gadaal dambe ka hadla doona kutub ayaan ka qoray la yiraahdo yoogada islaamiga ah iyo sida loo suubiyo. waxaana laga heli karaa www.lulu.com. waxaana qoray Samatalis Hussein Hayle. mar labaad hadaan ku celiyo buugaas cinwaankiisa waxaa la yiraahdaa yoogada islaamiga ah iyo sida loo suubiyo. talaabada koowaad marka waxa waaye inaad ku fariisatid busti. waxaan doorbidayaa aniga maaragtay inaad busto ku fariisatid. maxaa dhacay waxaa laga yaabaa inaad dheer tahay oo dhan tahay 1 mitir iyo 1 mitir dhibic 8 ama aad ka dheer tahay. sidaa darteed haddii aad ku fariisatid bashintaan oo kaleeto oo la dhaho zabutin lagana isticmaalo dhulkaas iyo Japaanka waxaa dhacaysa inay ka dheeraato oo markaas saddexda meel oo celinayo culayskaaga aysan barkinta ku dhex jirin oo ah maaragtay labadaada jilib iyo salkaaga. saddexdaas meelood ayaa culayska celinaya. qofka dheer marka jilbihiisa banaanka u baxayaan jilbihi maadaama ay celinayaan culayskii oo dhanna waxaa dhacaysa inaysan haysanin wax iyaga celiya. taana waxay kalifaysaa qofka inuu si fiican u fariisan waayo. sidaa darteed maadaama aniga aan 6 feet ama 1 mitir 1.8 maaragtay mitir aan ka dheerahay ma isticmaalo karo. marka barkinta markaad ku fariisatid waxaad laalaaban kartaa buste oo dhan ilaa maaragtay 1 mitir oo isku weera ama 3 ilaa 4 feet oo isku weera hadba cabiraada markaas ku haboon. taa marka waxaan dhahnaa waa talaabada koowaad. sababta busto loo dhiganayo ama barshin loogu fariisanayo mar labaad haddaan ku celino waa in saddexda meelood oo culayska jirka celinaya labada jilib iyo salka waa in ayagana maadaama culays badan ay hayaan waa in ayagana maaragtay wax oo maaragtay celiga la hoos dhiga. haddii kale hadii gawaan ku fariistaan hadda culayskii ma celin karaan saacado badan ma fadhin kartid. si markaas aad arrimo fara badan u gashid oo ka mid tahay tafaakurka inaad iska fikirtid oo arrimo fara badan ka fikirtid oo mushakalaad fara badan ku haysta xallisid hiwaayaad fara badan iyo gaayaad fara badan aad leedahay sida ku gaari lahayd inaad daba dhigatid iyo guud ahaan inaad maskaxdaada sida maaragtay kabanka loo adkeeyo maskaxdaada oo adkeeysid markaana hawlo badan aad ku qabsatid li tabtabu mardaat ilaahi raalihansha ilaahi aku dalbatid fadl ilaahi xoolaha faraha badan adduunka yaala aad ku dalbatid wa ila aakhir dalika intaas kasifo. نحمد الله عز وجل ونشكره إلهي بان أقوم هاد علينا رماها النتصي معناته نقولنا هاي أنا ومركز طلباء طلبانين علمي مرجع واحد سوق عادنا يسام مركز بحشا محلي هذا زاف يعني هذا بقولك جبان كأنا ما استعمال مرة سواء تقصوا قاعدين يسنوا وحوا السلك أيال ربعين وكسر أيال اللي بدي يجيب طلبات السلك أيال ربعين وكسر أيال اللي بدي يجيب تم حي سهل يسام مركز أنا سفي عنه أدو فريستي فدونه هدي مركز هذا لك هذا كفريسن وحدا عيسى إن عالم كلا ديران لبضنا واتجاهين كرتا سياد وقعتي مدة أنا وأن كنت علينا إنه وأن كسر برتين إنه اللي هذا معلن كتسوكي سكيدا كتب كيس اللي هذا Zen training methods and philosophy هدي أدي مركز هذا أمانين إنه أحسنت هاي تجاري وواحد نقطة سيد سينسيها أو كلاته ومركز فيرينا هاي لبضا مدة في عن مركز أنا مدة في عن ظهور وقت العبد
tilaabada saddexaad waxa weeye salka ayaad waxaad saaraysaa bashinti waxaad xaqiijinaysaa bashintu inay taalo dhexda labadaada simo inay taalo inaad ujeedinayaan u malaynaya gacmihii waa ujeedin marka labada simo dhexdooda waa inay ku jirtaa duubitaankana inuu socda ayaan jeclahay marka waa inaad xaqiijisaa tilaabada saddexaad ayaan ku jirnaay in bashintu aysan taaban bawdiyaha marka la arrintaan waa arrin tijaabo aad ku ogaan kartid iyo markaad amin fara badan fadhideed marka halka xaqiijisay tilaabada afraad waxa waaye waxaa la yidhi xusuusta insaanku wuxuu xasuustaa oo keliya tanna waxaad ku baran doontaa fadhi badan markaad samaysid oo maaragtay marar badan tirisid neeftaada waxa uu la socdo ficil leh astaamo u gaara sababtaas waa marka sababta aan u lahay afarta si aan ugu xusuusto tilaabada afraad qaabab fara badan oo loo fariisan karaa jira kutubta aan soo sheegnay ayaadna ka akhrisan kartaa oo ingiriisiga ama soomaaliga labada ku qoran ama internetka ka baahsan kartaa midka ugu fudud waxa waaye qofku inuu lugtiisa meesheeda maaragta hore waad ujeedin inay qayb kamid ah inay taabanayso inta u dhaxaysa jilbaha iyo anqowga dhexdiisa midda kalena oo ay taalo maxaa la gadaal inta u dhaxaysa mar labaad anqowga iyo jilbaha qaybta gadaal saas u saarantahay waxaa inta badan taabanaya suulka ayaa taabanaya qayb kamid ah lugta kaleeto marka taasna waxaan dhahnay waa tilaabada afraad aan soo sheegnay ugu dambaysa tilaabada shanaad waa hadda midda aan ku jirno waxa waaye waxaad hore usoo qaadaysaa simaha lafaha simaha hore usoo qaadaysaa u fiirso lafaha simaha ayaad hore usoo qaadaysaa wax yar lafaha simaha ayaad hore wax usoo qaadaysaa bacdina dhexda ayaad hore usoo foocinaysaa tilaabada shan waxa waaye xoogaa yar ayaad maaragtay soo foocinaysaa aad hore usoo qaadaysaa lafaha simaha bashanaad midda lixaadna waxaad samaynaysaa caloosha ayaad hore maxaa la yidhahdaa dhexda ayaad hore usoo qaadaysaa aan ku celina marlabaad tilaabada shanaad waxaa waaye lafaha simaha ayaad hore usoo qaadaysaa tilaabada lixaad waxaa waaye dhexda ayaad hore usoo qaadaysaa intaa marka waxaa kusoo gabagaboobaysaa tilaabada lixaad tilaabada na waxaa waaye gacantaan ayaad kor u qaadaysaa bidix gacanta midigna gadaasheeda ayaad dhigaysaa kabacdina labada suul ayaa waxaad isaga dhigaysaa taageero bacdina waxaad dhigaysaa dhexda toddobaad waa sideedaadna waxaa waaye waxaad tirinaysaa suulka saa uma tirinaysa saasa u tirinaysa suulka waxaad tirinaysaa saddex suul ay xudinta intaad gacanta saarta waxaa ka tirinaysaa saddex suul kow labo saddex meeshaas uu suulka saddexaad yaallo ayaad labada suul dhigaysaa zideedeed waa tii sideedaad ujeed marka intaa markaad samaysay ayaa waxaad samaysay sideed tilaabadood ayaad qaadatay haddana waxaan ugu duweynaa qaybaha sare iyo maaragtay tilaabooyinka xasan aad iyo aad mahadsantihiin